السلام عليكم أغيرت وين السلامي مدة كلام مغنين إسكال الله شوفنا أحسن وحكون فرح سنة هاي أسبوعا إن عندها كرجني إكس أبديت أو بارتي تويتر إكس لو بدري وأنا كوبلوني إن عند كل سودا جنا وركها دق سوق كريبتو كارنسي ما دام السوق هذا وجوه مرحلة رنتي مهمة وضد بدن إيش إيكو هايان مركب موضوعنا ما يتسمى قصير لكن وحربة إلى سدويسان صاحب هذا عصب يعني وصل بيري مدة إنه كلام مغنين intaasoo kun oo qofood oo dhalinyaro ah oo meel kala duwan jooga adduunka oo dhan inay noo soo biiraan oo ina aaminaan aad ugu faraxsanahay asxaabta ila soo dhaweeya insha Allah qaybta committee-ga saaxiibada cusub hal soo dhaweeya khayri aad u mahadsantiin haddii adiga aan ugu cusub tahay saaxiib soo dhaw halkan waxaan kaga hadalnaa ganacsiyada online-ka ah iyo fursadaha dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan haddii tahay sida lacagta looga sameeyo social media-ha haddii tahay sida dhalinyarada isku horumariyaan cryptocurrency-ga iyo anything oo Janis ah oo dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan especially waxaan soo gudbiyaa waxyaabaha aniga ii shaqeeyay ee lacag aan ka sameeyay ama wax kala dhameeyay marka haddii ay barnaamijyada daneynaysid soo dhaw mawduucina maanta marka waxaan ku fiiri doonaa sidee lacag looga sameyn karaa 5 application oo muhiim ay tahay inaad ku baraarugsan tahay hadda wixii ka dambeeyay oo aadan dhayalsanin 5 aalad ee maanta idin la soo wadaagi doona aaladda koowaad hadda ku bilaabo aaladda koowaad waxaa loo yaqaanaa Kick live streaming aaladan Kick dabcan waa maqasheen waa ku aragteen marar badan iyadoo laga hadlayo social media dhalinyaro badan oo social media ku jirta ka hadlay marka aaladan Kick waa aalad ugu muhiimsan ee xilligan joogan isleeyahay qof kastoo dhalinyaro lacag waa ka sameyn karaa aaladan kaaga ma baahno ina aqoon badan leedahay ina PhD wadatid ina shahaado jaamacad wadatid ina taan qof maaragtay expert ah hadaa computer heli kartid Kick live waa ka bariisan kartaa haddii mobile ahayd sidoo kale mobile ku bilaabi kartaa laakiin xogaa waxay noqonaysaa luuq inaad soo marto oo dib xogaa kala kulanto marka sida ugu fiican ee Kick live lacag looga sameyn karo hadaa heli kartid hal kamerad iyo hal computer you almost there halkaas aad joogtaa waxa kaliya aad sameynaysaa wax kale maahan waxa sameynaysaa haddii ay jiraan games adiga aad jeceshahay inaad ciyaarto ay ku soo gudbinaysaa si live ah dad badan oo dhalinyaro saaxiibada kula daawanayo marka lacag ka sameynaysaa shuruudeeda ma dhibadna runtii waa shuruudo iska fudud ah ka soo bixi kartid hadda screen-kayga ay dabcan kaaga muuqdaan shuruudaha kan hadda waa Kick stream-kayga aniga hadda ku soo biiray marka saaxiibada ku soo biiri doona halkaas igu soo dhaweeya link-kayga waxa kale doontaan insha Allah qaybta macluumaadka aan ku soo gudbiyo social media link-ga laga raaco ee free over ee qaybta description-ka yaalo halkaas ka soo raaci kartaa marka dhammaan social media oo link-gaas ay ku jiraan Kick live-na ka dhex raadin kartaa marka Kick aniga laftigay maalin walba live ka soo galaa yani barqadii oo kale subaxdii 3 saac ilaa iyo 5 saac meelahaas oo kale maalinta Janis la waaye live ka soo galaa maalin walba waxaan ku soo gudbiyaa halkaas cryptocurrency-ga iyo fursadaha dhalinyarada iyo yani live update wixii markaas jiro suuqa iyo maaragtay haddii aan trade qaadanayo maalintaasna waa ku soo gudbiyaa dabcan iyo analysis suuqa waxaas aan ku soo gudbiyaa marka Kick live runtii aad muhiim u tahay 2024 hadda muuqaalkan daawanaysid yaa laga hormarin meeshaas hadda waa meel bilow ah oo dadka dhan ay hadda ku biirayaan marka aaladda waxay ku fiican tahay marka oo ay aad runtii dad ugu soo jeedatay waa aaladda 95% lacagta aad shaqaysid adiga qaadanaysid mid kale hadda isleedahay Soomaaliya qof jooga ma ka shaqaysan karaa waa ka shaqaysan karaa qof Soomaali jooga laakiin waxa u baahan tahay kaliya marka aad shuruudaha buuxisid in account-kaaga qof dibadda jooga uu kugu xiro wax la yiraahdo account payment-ga qaabka lacagta yani kugu soo dhacayso laakiin adigoo jooga Soomaaliya ka shaqaysan kartaa adiga mar walba waxa ogaataa location-ka inuu ku xadido lama rabo mar walba waxa ogaataa waxa jirto way out yani wada xal lagu galaa jirto markasta hadaa lacag sameynaysa internetka waxa muhiim ah inaad taqaanid wadada wax lagu xaliyo hadaa wadada wax lagu xaliyo aqoonin in internetka lacag ka sameeyso runtii kugu adkaan doontaa marka maanta wixii ka dambeeyo note-kaaga ku qoro Kick live streaming waa runtii very important aapka afraad ee maanta aan kula wadaagi doono waxaa loo yaqaanaa Telegram mar badan waa maqasheen muuqaala ka daawateen intiina badan yani Telegramka anaga hadda waxa nagu jirto in ka badan 26,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo meel kasta adduunka oo dhan joogo runtii aad ugu faraxsanahay sidoo kale Telegramka waa platform aad u awood badan oo markii hore tartan kula jiray WhatsApp-ka oo loo isticmaali jiray sida caadiga oo kale maaragtay in message la isugu diro in caadi lagu sheekaysto muddooyinkii dambe waxaa caan ku ahaa Telegramka in Soomaalida qaarkood ay siyaabo aan fiicnayn u isticmaalayeen oo runtii blackmail ay ku sameeyayeen dad badan oo dhalinyaro ah oo runtii wax laga fiican waaye laakiin dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro badan oo si positive uga faa'iideysto oo yani iskuulkooda jaamacadooda casharada ku wadaago iyo sidoo kale dad badan oo macallimiin wax ku bara online-ka oo isticmaala aaladda Telegram sidoo kale waxaa jiro dad badan oo runtii aaladda Telegramka ku soo gudbiya muuqaalo maaragtay filimaanta af Soomaaliga loo tarjumay Hindiga iyo muuqaalada kale ee xiisaha badan marka Telegram ayaa ku daalinay hadeertaan 2024 wuxuu bilaabay inuu dadka lacag siiyo oo monetization ugu sameyn karo waagi hore Telegramka lacag laga sameyn jirin but right now waxa u baahan tahay oo kaliya inaad haysato channel-kaaga inuu heli karo kaliya u baahan tahay
kun qofood oo followers ah, kun qofood oo members ah. dabcan iyaga members dhahan kun qofood oo member ah hadaa heshid yacni oo ku xiran telegram channelkaaga lacagta ku bilaabanaysaa. lacagta qaabka ay ku helaysidna kuma xirna Soomaaliya, kuma xirna wadan kale. waxaa u baahan tahay oo kaliya inaad haysato yacni wallet oo decentralized ah oo la yiraahdo Tonkeeper iyo Telegram waxay leeyihiin integration wada shaqeyn ka dhaxayso. marka lacagta marka lagu siinaa xataa crypto ahaan lagu siinaa, waxaan lagu siin doonaa coin la yiraahdo Toncoin. marka runtii aad ay muhiim u tahay 2024 inaad ka faa'iidaysatid Telegramka oo channel samaysatid, inaad heshid kun subscribe wax badan kugu qaadanayso. yacni qaraabada iyo ehelka asxaabta WhatsApp ka u dirtid, hadda Facebook soo dhigtid dhowr qofood intaas kugu filan. kadibna waa inuu mar walba jiro mowduuc adiga aad dareynaysid oo aad xoog saaraysid. yacni mowduuc dadka ay xiiseyn karaan waxyaabaha haddaad doonto waxaad dhihi kartaa yacni Telegramkii waxaan kusoo gudbinayaa wax kastoo update wararka siyaasadda, sheekooyinka, yacni waxyaabaha update-ka trending-ka social media waxyaabaha xiisaha leh. waxaa kaloo cajiib yahay Telegram ma lahan wax copyright ah, wax kasta kusoo gudbiso yacni wax copyright kugu qabsanaya ma jiro. marka waxaan rajeynayaa maanta wixii ka dambeeyo muuqaalkan daawanaysid Telegramka inuu ku noqon doono يعني application hadda kadib ka fikiri doontid inaad lacag ka samaysid aadan ka fikiri doonin in applicationkaas yani aad ka isticmaasho kaliya ama adiga wax lagu soo gudbiyo kaliya. app saddexaad ee maanta aan fiiri doono waxaa loo yaqaanaa Twitter ama X. dadka badan Twitter u yaqaan magac hore waay laakiin hadda wuxuu u guuray magac la yiraahdo X wuxuu cajiib ku yahay lacagta adiga aad shaqaysato 97% adiga qaadanayo. waa run Soomaaliya hadda toos xayisiinta uma heli kartid, laakiin waxa kugu filan oo kaliya inaad ku xirato VPN qof asxaabtaada kamid ah haddii uu meelahaas joogana dabcan lacagta say kugu dhacaysaa isagana kuu soo diri karo. waana runtii wax aad u fudud waa Twitter. weliba hadda wuxuu soo wadaa isagana inuu sameeyo integration cryptocurrency in lacagtaada ay ku qaadi kartid. markaasna akoonkaada cryptocurrency ay ku xiran doontaa, uma baahnaadid inaad cid kale u sii marto. Twitter wuxuu si gaar u anfacayaa maadaama kick aan dhahno wuxuu anfacaa dhalinyarada oo live streaming-ka jecel oo game-ka ciyaaro waxyaabahaas. Twitter isagana wuxuu aad runtii u anfacayaa dadka jecel inay ka hadlaan siyaasadda, dadka jecel inay wax qoraan, dadka rabaan inay cilmi soo gudbiyaan, dadka mowduuc gaar ah si gaar ah u jecel inay ka shaqeeyaan technology-ga, computer-ka, yani arrimaha dhaqaalaha, arrimaha cryptocurrency-ga, forex-ka, stock market-ka, yani issues kasto aad rabtid inaad ka hadasho Twitter-ka. runtii dad badan jiro oo online-ka hadii lacag laga sameeyo niyo ma hadli karo, muuqaal ma duubi karo, editing ma aqaano, marsi waa dhamaatay. Twitter-ka waa furanaysaa oo kaliya si aad lacag u samaysid wax kale u baahnid shuruudo fudud oo baahan inaad buuxiso. app labaad ee aan rabo maanta inaan kuu sheego inaad lacag samayn karto waxa waaye YouTube. dhammaantiin waa ogtihiin YouTube-ka shuruudihii oo dhan waa qafiifiyay, wuxuu ka dhigay wax biyo caadi oo qof walba ka soo bixi karo. waxaa kaloo cajiib haddana YouTube-ka haddeertaan algorithm-kiisa waxaa lagu sameeyey yacni awoodsiin badan. wuxuu aad u dhiirigelinayaa hal abuurka, wuxuu aad ula dagaalamayaa yacni muuqaalada ay sameeyaan AI-ga iyo muuqaalada duplicate-ka ah ee isku eg. marka haddii aad tahay qof samayn karo muuqaalo joogto ah social media dhan sida ugu fiican lacag looga sameeyo horta waxa waaye inaad muuqaalada joogtaysid oo waxaada ay noqdaan wax update ah. inaad joogtaysid macnaheedu ma ahan inaad maalin kasta video soo gudbisid, laakiin inaad joogtaysid waxaa loola jeedaa in jadwal aad leedahay. tusaale kale isbuucii maalinta axadda wax soo gelinaa ama waxaad dhehaysaa isbuucii 2 maalin wax soo gelinaa. marka maalintii iyo saacadii laga filayo waa in wixii la helo. dadka kugu xiran ee subscribers-ka ee saaxiibada ahna waa in update noqdaan. haddii ay caqabad iyo dhib ku haystaan waa inaad qaybta community-ga ama hadda video soo duubi karto u soo sheegtaa oo tiraahdeed maalmahan iyo cudurdaara ciladaas jir sida hana muuqaalka markaa furayba aan sameynay. marka YouTube-ka hadda lama dhayalsan karo, wuxuu noqday aalad kale oo isaga runtii lacag badan laga sameyn karo. YouTube-ka ogtihiin marka lacag ka sameeysid lacagtaada si fudud ku qaadan kartaa. qof kale oo saaxiibka oo YouTube ha isticmaalo ayaa wax dhihi kartaa niyo payout-ka igu xir kadibna lacagta isaga ku soo diri karo saaxiibka. qof YouTube isticmaal kaliya raadi waan ogtahay YouTube haddii akoon subscribe ma hay 500 saddex gaartid waxaa qasab inaad baran doontid dad adigoo kale ah oo YouTube ka shaqeysto maadaama community-kaas ku soo biirtay dad badan dabcan ku garab qaban doono. app-ka koowaad ee maanta aan ku doortay inaan ka dhigo waa Facebook 2024 wuxuu noqday يعني lagama sheekeyn karo. horta Facebook waxaa number 1 uu ku yahay mar walbo waa application-ka ama yani social media app-ka ugu awoodda badan dadka ugu badan ay joogaan. hadda waxyaabaha Facebook aad kugu soo jeedinaya waxaa kamid ah yani sawir haddaa soo dhigto lacag ka sameynaysaa, haddaa soo dhigto video lacag ka sameynaysaa, haddaa qoraal soo dhigto lacag ka sameynaysaa, commentiga lacag ka sameynaysaa, like haddii lagu saaro lacag ka sameynaysaa, xitaa haddii qofku angry uu ku saaro lacag ka sameynaysaa. marka Facebook haddeertaan waxaan dhihi karnaa waa game changer. marka maanta waxaan rajeynayaa 5tan app ee aan kula wadaagay ee aan hubo in badan oo kamid ay ku jiraan mobilkaaga maanta wixii ka dambeeya ha u isticmaalin inaad adiga macluumaad lagu shubo kaliya, waa inaad adiga lacag ka samaysid macluumaadna soo gudbisid. marka social media talooyin hadaa ku siiyo waxaa muhiim ah social media markaa bilaabaysid maanta ha ka fikirin. adiga maanta waxaa laga yaabaa dhalinyaro inaad tahay lacag badan aad heli karin, laakiin waxaa heli kartaa waqti
marka waqtigaada intaada lacag inaad hesho aad ka fikrin marka hore waa inaad barato xirfadaha kaa caawin kara inaad lacag samaysid xirfadahaas oo runtii muhiim kugu ah in safarkaaga uu kuu soo gaabto si muddo kooban haddii maanta aad dadaal shid ama xirfadii taqaanid inaad Facebook iyo YouTube lacag ka samayso runtii waxay kugu qaadan kartaa 9 maalmood kaliya 3 bilood haddii aad dadaashid 9 maalmood ogtihiin xitaa koorsooyinka gaagaaban 6 bilood lagu qaataa marka 9 maalmood kadib si ay kugu suurto gashay inaad social media ka bariisin kartid waxaa muhiim ah runtii inaad waaqici noqotid oo xirfadaada kor u soo qaadid mar walbana waxaa ogaataa learning ma dhamaado mar walba learning inaad wax baratid ma dhamaato marka waa bilaabaysaa maalintii koowaad ma noqon doonto qofka professionalka ah ee ugu fiican qofka maanta aata aniga muuqaalka hadda aan diyaarinayo waxa laga yaabaa muuqaalkii koowaad YouTube aan soo gelinayo inuu sakan oo kale ahayn oo ka liitay quality ahaan iyo khibrad ahaan iyo inaan dhib badan ka mari jiray marka muuqaal diyaarinayo inkastoo khibrad hore aan lahaa oo yani dhowr iyo 10 sano aan media ku soo jiray haddana alxamdulillah mar walba waxaa samaynaysaa tadawur iyo horumar iyo la qabsi marka waxaan rabaa inaan kuu sheego inaadan cabsan dad badan jiro oo kaamirada ka cabsanayo taasna dabcan waxaa fiican inaad research samaysid sida la isaga baabiyo yani inaad dadka hortooda imaadeen aad ka cabsanin meesha bini'aadana joogo bini'aadamka caadiga suuqa kula kulmaysa unba halkaan jooga marka macluumaadka adiga soo gudbinayso waxa muhiim ah kaliya inay yihiin macluumaad run ah wax dambi ka soo gaarinin isla markaasina adiga hobbigaada ah yani sidee loo doortaa niche hadda jeceshiin inaan ka hadlo qaybta committee uu soo qora sidoo kale waxaan ka soo hadli doonaa haddii idinka aad dalbatiin waaye يعني موضوع وفيعن العائلة laga sameyn karo marka la joogo social media haday noqoto Facebook haday noqoto Telegram haday noqoto dhamaan social media oo dhan marka waxa laga yaabaa maanta magacyada aan ku sheegaynayso kugu cusbeen dhamaantood oo aad hore u maqashay laakiin waxa muhiim in aad ku baraarugtid 2024 wixii hadda ka dambeeyo waqtiga dum ku maharin haddii aad rabtid inaad 2025 lacag fiican ka samaysid online-ka waxa muhiim ah shantan aabmaanta aan kula wadaagay inaad ka faa'iidaysatid oo aad xoog saartid waxaan hubaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo 2025 in ay ku bilaaban doonto adigoo online lacag ka sameeynaayo ku fadhiso wax problem aan qabin yani kadib inay soo mahad celin doonto insha Allah aqariba ma santiin muuqaalka kan xiga insha Allah waxa uga hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo siyaabaha looga trade gareeyo meme coinska yani marar badan waxa jirto cryptocurrency ka hadla marka dhalinyarada badan waxay aad isu weydiiyaan meme coinska sida Janus looga raadin karaa hadda maalin hore live aan ku jirnay kig waa weydeen yani meme coins badan arkaynay oo aad u jaban runtii oo meel fiican joogo oo aan dhahay waa la gali karaa meme coins qaarkood afar la saac la soo dhaafay kor u kacay runtii wax ku dhow 40% marka haddii aad gelinayd $100 kaliya $100 waxa ku raaci lahayd $40 marka waxaan rabaa haddii aad mowduuc isdaneynaysid waxaan ku casuumay inaan ku soo biirtay channelka dad badan arkaa oo daawanaya channelka oo wali aan xubin ka ahayn marka haddii aad dadkaas kamid tahay saaxiib luuqan ku soo dhawow waxaan ka hadalnaa fursadaha dhalinyarada iyo ganacsiyada online-ka ah aad u mahadsantihiin